barnaamijkeennan waxaynu ku soo qaadanaynaa isbarbarig dhinacyo badan oo lagu sameeyey labada urur dawladeed ee jaamacadda carabta iyo midowga Yurub. ururka jaamacadda carabta waxaa la aasaasay 12kii bishii Maarch sanadkii 1945 halka ururka midowga Yurub la aasaasay sanadkii 1992 isagoo markii hore uu jiray suuqii dhaqaalaha ee reer Yurub. midowga Yurub waxaa ku midaysan 23 dawladood oo la aqoonsan yahay halka ay jaamacadda carabtana ku midaysan yihiin 22 dawladood. dhanka luqadaha ururka midowga Yurub waxaa ka sharciyeysan 23 luqadood oo rasmi ku ah halka jaamacadda carabtuna ay luqadda carabigu tahay midda kaliya ee rasmiga ah. dhinaca diimahana midowga Yurub waxaa laga aaminsan yahay diimo iyo waxyaabo kale oo fara badan halka dadka ku nool wadamada jaamacadda carabtuna ay u qaybsan yihiin 3 diimood. dhanka maamka haddaynu eegno dalalka midowga Yurub ku boobay waa kuwo kala fog oo dhul aan isku xidhnayn degin laakiin wadamada jaamacadda carabtu waa kuwo leh xuduudo isku xidhan oo xidhiidh ah marka laga reebo masaafada yar ee ay ku jirto dawladda Eritrea. haddii aynu eegno guulaha ay labadan urur gaadheen qaar ka mid ah oo ay ku gaadheen midnimadooda, midowga Yurub waxa uu leeyahay lacag midaysan laakiin ururka jaamacadda carabtu ma laha. dalalka midowga Yurub waxay ku guuleysteen inay dadkoodu baasaboor la'aan isu gudbi karaan laakiin jaamacadda carabtu ma laha taasi waxaana la masaafuriyaaba qofka ay ka dhacdo ciqaamadii uu waddanka ku joogay. dalalka midowga Yurub waxay gaadheen inay samaystaan iskaashi difaac oo hirgalay laakiin dalalka jaamacadda carabtu taa iskuma dayinba oo iyagaaba colaadda u xumi dhex miranaysa. dalalka reer Yurub midowgooda waxay ku samaysteen hannaan cashuureed oo midaysan laakiin carabtu qorshe noocaas ah ma gaadhin. haddaba arrinta isweydiinta leh waxay tahay dalalka carabta ma waxaa ku jira awood yari mise dhaqaale la'aan ayaa haysa. haddii aynu gudaha u gallo dalalka jaamacadda carabta dhul ahaan waxay ku fadhiyaan 13.3 milyan oo kilomitir oo square ah taasoo noqonaysa inay noqon lahaayeen waddanka labaad ee ugu dhulka weyn adduunka. midnimada carabta oo dhab ahaan shaqo gasha waxay ka dhigi lahayd dalka saddexaad ee ugu dadka badan dunida iyadoo tirada dadkoodu ay gaadhayso 386 milyan oo qof. haddii ay midnimada carabtu markaasi noqon lahaayeen hal waddan wax soo saarka gudaha ee sanadlaha waxa uu noqon lahaa 2.75 trilyan oo dollarka Mareykanka waxaana ay geli lahaayeen kaalinta afraad ee wax soo saarka gudaha iyadoo dawladda afraad ee deymaha ugu badan lagu leeyahay. iyadoo deymaha lagu leeyahay ayaa haddana maalin walba jaamacadda carabtu waxay soo saartaa 25 milyan oo barmiil oo shidaalkaasoo noqonaya 3 dalool shidaalka caalamka laga soo saaro. shidaalka kaydka ku ah dalalka jaamacadda carabtu waxa uu gaarayaa ilaa 722 bilyan oo foosto ama barmiil. isugeynta gaaska dabiiciga ee ay soo saaraan dalalka jaamacadda carabtu waa 523 bilyan oo mitir cube sanad walba taasoo u dhiganta 12% wax soo saarka caalamka adduunka ee gaasta. dhanka ciidamada waxa uu noqon lahaa jaamacadda carabtu waddanka koobaad ee ugu askarta badan isagoo xilligan leh 2.5 milyan oo askar shaqada ku jirta iyo sidoo kale 3 milyan iyo dheeraad askarta kaydka ah. jaamacadda carabtu waxay leeyihiin 18,000 oo taangiyada dagaalka ah marka sidaa loo eegana waxay noqon lahaayeen waddanka koobaad ee ugu taangiyada badan caalamka oo dhan. dhanka ciidamada cirka waxay jaamacadda carabtu leedahay ugu yaraan 5,000 oo diyaaradaha dagaalka ah taasoo ay ku noqon lahayd kaalinta labaad ee wadamada ugu badan ee haysta ciidamada cirka. dhinaca ciidamada baddana waxay jaamacadda carabtu haysataa 1,100 ka mid ah gaadiidka dagaalka ee badda. sidaana haddii ay midnimadoodu dhab tahay waxay noqon lahaayeen waddanka koobaad ee ugu horeeya dhanka ciidamada badda.